Waxaan isweydiinaynaa maxay tahay awoodda loo baahan yahay in la isticmaalo. Saan ognahayba, nolosha bini'aadamku waa mid aan weligeed toosnayn. Waxaa jira maalmo lagu farxo iyo maalmo lagu murugoodo. Waxaa jira waqti aad guulaysato iyo waqti aad ku fashilanto. Laakiin waxaa mar walba hubaal ah waa in qof walba uu wajaho caqabado. Qofna kama badbaado, ha ahaado taajir, ha ahaado faqiir, ha ahaado aqoon-yahan, ha ahaado qof caadiya, ha ahaado nin, ha ahaado qof dumar ah. Qof kasta oo nolosha hadaf ka lahaa waxaa qasaba inuu soo maray caqabado aan xisaab lahayn, laakiin wuu iska diiday in ay joojiyaan. Caqabaduhu waa qayb dabiici ah oo ka mid ah nolosha. Waxay u dhigmaan sida imtixaanka iskuulka oo kale. Waxay kaa rabaan inaad barato, fahamto, oo aad ka gudubto si aad u gaarto heer kale oo ka sarreeya. Haddii aan caqabadi jirin, qofna ma baran lahaa adkaysiga, dulqaadka, iyo hal-abuurka. Taasina waa maya. Bal aan isla eegno qodobadan: caqabadaha iyo muhiimadooda, sida loo wajaho xaaladaha adag, faa'iidooyinka adkaysiga, casharada aan ka baranayno. Number 1, maxay yihiin caqabaduhu? Caqabaduhu waa waxyaabaha naga hor istaaga in aan si fudud u gaarno himilooyinka aan leenahay. Waxa ayna noqon karaan kuwa naga hortaagan in aan guulaysano: dhaqaale xumo, caafimaad darro, guuldarrooyin shaqo ama waxbarasho, dhibaatooyin qoys iyo xiriir, cadaadis bulsho ama siyaasadeed. Mararka qaar caqabadda ugu weyn ma aha tan dibadda ah ee waa tan gudaha ah, sida cabsida, niyad jabka, iyo kalsooni darrada. Maskaxda qofka ayaa noqon karta caqabad ka weyn inta dunida dibaddeeda ka jirta. Laakiin marka aad si fiican u fahanto caqabadaha, waxaad baran kartaa in aad u aragto fursad lagu koro halkii aad ka arki lahayd carqalad ku hortaagan adiga. Number 2, sida loo wajaho caqabadaha. Maskaxdaada hagaaji. U diyaar garow in dhibaatooyinku yihiin qayb ka mida nolosha. Ha u qaadan in adiga keliya lagugu beegay. Xal raadso, eedaynna ha raadin. Halkii aad eegi lahayd cidda khaladka leh, xoogga saar xal u helidda. Qorshe yar samee. Caqabadaha waaweyn u kala qaybi qodobo yaryar oo si fudud loo fulin karo. Raadi taageero. La hadal saaxiib, qoys, macallin, ama qof khibrad leh. Talada wanaagsan waxay badbaadin kartaa mustaqbalka qofka hadafka leh. Samir iyo duco. Muslim ahaan, waxaa muhiim ah in la samro oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala la tala saarto. Qofka eebba ku tiirsan wuxuu helaa naxariis iyo xoog. Number 3, faa'iidooyinka ka dhalanaya caqabadaha. Marka aad ka gudubto xaalad adag, waxaa kuu dhasha dulqaad iyo xasillooni. Waxaad barataa inaad u fikirto si deggan. Waxaa ku gasha kalsooni nafeed. Waxaad ogaanaysaa inaad ka awood badan tahay sidii aad moodaysay. Dhibaatada ayaa kugu qasbi karta in aad barato wax cusub. Markaad guul hesho, waxaad si dhab ah u qiimaysaa guusha aad gaartay, sababtoo ah waxaad og tahay sida dhibka loo maro. Number 5, casharada aan ka baranayno. Guuldarradu ma aha dhammaadka, ee waa casharka guusha. Qofka aan ka harinna ugu dambeyn wuxuu noqdaa kan guulaysta. Caqabaduhu waxayna baraan samir iyo xigmado. Dadka guulaystay oo dhan waxay soo mareen xaalado adag. Haddii ay ayagu awoodeen, adiguna waad awooddaa. Noloshu waa safar dheer oo leh buuro dhaadheer iyo dooxooyin qoto dheer leh, iyo marino aad iyo aad u adag. Laakiin qofka adkaysiga badan leh ayaa ugu dambeyn gaara meel uu ku faano. Caqabadaha maanta nagu xeeran ma aha wax na burburiya, ee waa wax na dhisaya.
waa imtixaan nagu tijaabinaya awoodda aan u leenahay in aan ka gudubno marka aan ku jirno xaalad adag. Xasuuso in aad leedahay awood aad kaga bixi karto xaaladdaas. Adiga laftaadu waxaad noqon kartaa tusaalaha berri ee dadka kale dhiirigeliya. Waxaa laga yaabaa in maanta aad u halgamayso saad u noqon lahayd qof muuqda, laakiin berrito dad ayaa ku oran doona isagu ma harin oo isma dhiibin, anna isaga ayaan ku daydaa. Haddaba ha ka harin oo guushaadu waxay u dhowdahay marka aad dareento in aad daashay. Waad mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inaad igala qayb qaadan doontaan soo bandhigidda waxyaabo badan. Waxaan idin rajaynayaa guul wacan iyo inaad ka miro dhalisaan qof kasta hadafka uu ka lahaa noloshiisa inta uu nool yahay.